xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo qoraada ayar uu ku soo bandhigayay buu kaga hadlaya hooyada ayaa habeenkii xalay lagu qabtay Panorama Hall. xafladaasina waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Mudane Cali Siciid Reygel iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan Cabdiqaadir iyo madax ka tirsan jaamacadda Golis iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horeyn waxaa madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Mudane Cali Siciid Reygel oo halkaasi ugu mahad celiyay qoraaga da'da yar ee buuga soo bandhigay. waxaan maleeyaa inay munaasabadii ugu qiimaha badan waxaan maleeyaa dadka daawanaya ay ama dhageysanaya dad qiimo badan waxaan maleeyaa jaamacadda lafteeda soo bandhigtay inay tahay jaamacad xikmad badan u weyn sababtu waxa weeyaan caawa halkan waxaa lagu soo bandhigay aad u qiimo badan qof kasta oo bini aadana ragga dumarba marka la isku daro ciidii ugu qiimaha badneyd ugu mudnayd ayaa caawa buugan lagu soo bandhigay. waxaa kale oo isna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo isna ku dheeraaday qiimaha ay hooyadu leedahay sheegayna in ay buug iyo laba toona lagu soo koobi karin. dareensiyahay muhiimadda ay mujtamaca ugu fadhido oo ah halka ay dadka soo aqoonay hooyadu tii dhashay soo barbaarisay soo korisay inoo kusoo dhibaatootay caafimaadkeena waxbarashadeena inaga soo dadaashay kulkeeda ku kaajinay inoo dulqaadanaysay runtii lagama sheekayn karo diintuna waad ogtihiinoo 3 jeer rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri hooyadu qofka xaqa kugu leedahay tahay runtii qodobkaas waa midiyadna oo ku faraxsanahay qoraaga oo weliba arday jaamacadeeda oo ay ognahay jaamacadda hawsheeda faraha badan. ugu dambeyntiina waxaa isagu halkaasi buugii ku soo bandhigay qoraaga da'da yar Mukhtaar Jaamac Maxamed Libaax Salaax. buuggan waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood. qaybta koowaad oo ah maansada oo ugu qaybsada godka gabayga iyo godka jiiftada iyo qaybta labaad oo heesii koolkoolintaha ee hooyadu inagu koolkoolin jirtay. marti sharaftii xafladaasi ka soo qayb gashay ayaa la dhacay iyagu buugii halkaasi lagu soo bandhigay. Samsam Cabdilaahi Cismaan, Kalsan TV, Hargeysa.